boqol sano kadib qabiilaa laga dhigaa in daraawish qabiil gooni ahayd laakiin de sayidku Soomaaliya oo dhan uu wacday bimaal ayaa xataa ku jiray oo soo galay habar gidiraa ku jirtay majartayna ku jiray cid walba ku jirtay bilowgiisa hore horta sayidku markuu dhaqdhaqaaqan daraawish uu sameynay xiriirka Yurubtan oo la lahaa Muhammad markuu ciidamada aruursanayay ciidamadii uu horeeyay aruursadana de meeshan beero ka istaagay sayidka qabiilaadkii uu wacday oo u dhawaaqay habeen oo yiri ciidan ayaan doonayaa qaarna warqadu kula hadlay qaarna asaa u tagay markay labada qabiil u horeyso ciidamo ku caawiyay oo ciidanka ugu horeeyo ku soo tabarucay waxay ahaayeen habar Yunis habar Jalo kadib waato boohol agteeda dagay qabiiladii kale ku soo biireen ree bahgari oo ka dhashay iyo cali gari oo ree abtigi ahaa ku soo xoojiyeen marka dambana daraawiishda Soomaaliya oo dhan iska noqotay oo hadda boqol sano kadib qabiilaa laga dhigaa in daraawish qabiil gooni ahayd laakiin de sayidku Soomaaliya oo dhan uu wacday bimaal ayaa xataa ku jiray oo soo galay habar gidiraa ku jirtay majartayna ku jiray cid walba ku jirtay oo soo galay hadda waxa jira nin la yiraahdo la taliyaashiisa kamid oo aan ka harin oo gaalkacay ka soo jeeday ilaa uu iimi ku dhintay uu la socdaa nin habar jeclana waa la socdaa nin majartayna waa la socdaa kama harin ilaa uu dhinto labadii indho garab taagnaa dadka dhan waa ka hareen caa'iladiisa ka hartay reer Sheekh Xasan Nuur Maxamed Cabdulla Xasan Nuur Allah reer Xasan Nuur qaarkood ka haray sayidka ayagu waa la socdaan laba la taliyo u yimaad ag taagan ilaa uu ka dhinto email la galeen waa la socdaan dhowr la oran jiray abshir dhowre ninka majartaan ma garan marka ilaa meeshaas sayidku oo hawshiisa sidaas ay ahayd